Hadallada Soomaali badani ay sida joogtada ah ugu hadaaqaan waxaa ka mid ah oraahda tiraahda qabiilku dhib ma leh ee qabyaaladda ayaa xun. Marka aan isweydiino oraahdaasi maxaa ka run ah, maxaa ka jira in qabiilku uusan dhib lahayn, qabyaaladda ayaa dhala oo xaggee bay ka soo burqataa? Runtii qabyaaladdu waa xun tahay, xumaanteeduna waxay ka dhalataa qabiilka. Inta qabiil jirana qabyaaladdu way sii jiraysaa, maxaa yeelay qabiilka iyo qabyaaladdu waxay isku yihiin sida geed iyo mirihiis. Sida Carabtu ay tiraahdana, geedka iyo laamihiisu waa isleeyihiin. Qabiilka iyo qabyaaladuna waa isdhalaan. Aadamiga oo idil waxay isla ogol yihiin in dadka oo dhammi ay asal mid ah ka soo wada jeedaan, oo bilmatalan dadka diimaha rumaysan badankoodu waxay qabaan in bani aadamka oo dhan laga abuuray hal hooyo iyo hal aabe oo lagu magacaabo Xaawo iyo Aadan oo iyaga dhoobo laga uumay. Dadka inta aan diimaha rumaysnayna waxay ku qanacsan yihiin aragtida Darwin ee sheegaysa in isbeddelka maadiga ah ee walxaha ku dhacay ilaa jeer ay noolayaashu soo gaareen xaaladda ay hadda ku sugan yihiin. Guud ahaana mu'minka iyo mulxidku waa isla qirsan yihiin in bani aadamku ay asal keliya leeyihiin. Intaa waxaa weheliyay in dadka taariikhdooda oo dhan aysan hal meel ku sugnayn ee ay guurguuri jireen iyaga oo fursadaha nolosha daba jooga. Xitaa haddii ay jireen bulshooyin hal deegaan ku nagaa oo aan guurguuridda aqoon, kama ay badbaadi jirin in iyaga dibadda looga yimaado oo dhaqankooda iyo dhiigooda labadaba la barxo. Sidaas oo ay tahay, misna ummadaha adduunka iyo qowmiyadaha iyo qabiilooyinka kala duwan, qolo kasta waxay jeceshahay in ay ku andacooto in iyadu ay tahay dhalad gob ah oo uunka Alle oo dhan ugu sarraysa. Sheegashada caankaas ahna waxaa ku sii caan ah ummadaha weli abtirsiga ku dheggan. Qabiilka abtirsiga ku dhisani waa nidaam qadiim ah oo ummadaha adduunka badankoodu ay ku dhaqmi jireen kahor intii nidaamka dowladnimada casriga ah aan la baran. Waayo qabiilku waxa uu ahaa welina yahay qaab qofka iyo bulshadu ay naftooda iyo hantidooda ku cayimaan, waxaana la yiraahdaa qabiilku waa dowladda cidda aan dowlad lahayn. Qabiilka iyo qaranku waa laba marxaladood oo kala duwan oo loo kala gudbo. Hawsha kala wareeguna caadi ahaan waxay qaadataa waqti dheeraan kara ama gaabnaan kara, iyada oo taasi ay ku xiran tahay hadba duruufaha dhaqan-dhaqaale ee bulshada ku gedaaman. Waxaana xusid mudan in aqoonyahanada qaarkood ay qabaan in taariikhda iyo horumarku aysan ku socon hal waddo oo kor u socota, balse ay horay iyo gadaal ugu socdaan qaab laalaab iyo iska daba wareeg ah, oo taariikhda iyo horumarku ay isu gedgediyaan sida xilliyada sanadku ay isugu rogrogaan gu, xagaa, dayr iyo jiilaal. Ilbaxnimooyinku waa dhismaan waana burburaan, sidoo kalena qabiilooyinku qaran bay noqdaan, qarankuna qabiilooyin buu dib ugu gurtaa. Sidoo kale qabiilka iyo dowladnimadu waa isbarabixiyaan, oo marka kaalinka dowladda uu xoogaysto waxaa yaraada kan qabiilka. Taalidkeeduna waa sax, oo marka doorka qabiilku uu xoogaysto waxaa shiiqa kan dowladda. Sida dadka badankoodu ay ka dherigsan yihiinna, nolosha aadmigu waxay soo martay marxalado badan oo kala duwan ah. Nolosha dadku waxay ka bilaabatay marxaladdii qaraabsiga ee qofka iyo qoyska loo noolaa. Waa marxaladdii halku-dhig u ahaa nin qaroon hela, nin quwaax hela, carro waa quud, hala qarabsado. Marxaladdaas waxaa xigtay marxaladdii barashada dhaqashada xoolaha oo ay samaysmeen bulshooyinka raacatada ah ee dhiigga iyo dhaqan wadaagga ah. Taana waxaa xigtay marxaladdii barashada qodaalka dhulka oo ay samaysmeen tuulooyinka iyo deegaanada joogtada ah. Tuulooyinku marka ay kobcaan waxay noqdaan meelo ay ku kulmaan dadyow kala beelo, dhaqamo iyo xirfado ah, waxaana ka curta ganacsi, maamul iyo nidaam dowladeed oo bilow ah. Sidaa awgeed, qabiilku waa dowladda dadka aan dowlad lahayn. Taariikhda aadmiga badankeedana waxaa jiray dagaallo iyo loolan u dhexeeyay dhaqatada iyo qodatada. Inta badanna dhaqatada ayaa duulaanno bililqadoon ah ku qaadi jirtay qodatada. Diimaha dunida ka jira badankooduna waxay siyaalo kala duwan u xusaan qisada Qaabiil oo xoolo dhaqato ah oo ku dilay Haabiil oo beer qodato ah. Qisadan oo la rumaysan yahay in dadka alifay ay ku saleeyeen boobkii iyo dhicii xoolo-dhaqatadu ay had iyo goor u geysan jireen welina u geystaan beeralayda. Nidaamka dowladaha casriga ahi waa dhaqan ka bilowda Yurub kadib heshiisyadii Westphalia. Yurub waxaa ka dhacay dagaallo gudaheeda ah oo diin iyo xuduudo ku saabsan ah oo muddo 100 sano ka badan ka socday. Dad iyo dunyo badanina ay ku habteen. Dagaalladaas waxaa soo afjaray heshiisyadaas loogu magac daray deegaanka Westphalia. Heshiisyadaasi waxay horseedeen urashada waxa loo yaqaano dowladda qaranka ah ee mid waliba ay aqoonsanayso madax-bannaanida iyo xuduudaha kuwa kale. Gumaystayaashii reer Yurubna fikraddaasi waxay bareen dadyowgii ku dhaqnaa dhulalka ay gumaysteen ee Afrika, Aasiya iyo Ameerika. Falsafadda dowladaha casriga ahi ay ku dhisan yihiin waxaa kaalin mug leh ka qaatay filosoofyada ay ugu horreeyaan Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu iyo Jean-Jacques Rousseau.
Filosoofyadaas waxaa ugu horreeyay filosoofkii Ingiriiska ahaa ee Thomas Hobbes oo qoray dhigaaladiisa uu ugu caansan yahay Leviathan, oo uu si qeexan oo bareer ah ugu qulbixiyay ahmiyadda xukunka kaligitaliska ah uu u leeyahay bulshada si looga ilaaliyo fowdo iyo is-cun. Hobbes waxaa laga hayaa inuu yidhi hooyaday waxay dhashay 2 mataano ah, aniga iyo cabsi. Waxa uu sheegay in hooyadii oo bishii 7 uurka ku sida la soo tabiyay war sheegaya in boqorkii Isbaanishku oo cutubkiisii maraakiibta ahaa ee armada uu ku soo weerarayo Ingiriiska. Hooyadiisna naxdintii ay naxday darteed ay la dhicisay oo ay dhashay mataano ka kooban isaga iyo baqdinta oo noloshiisa oo dhan u helisay. Hobbes oo noolaa 7 dagaalo sokeeye ay Yurub halakeeyeen wuxuu ku dooday in dadku ay yihiin yeey iyo uubate dadka kala diirata. Hobbes fikradda aadanaha yeeyda ah wuxuu u adeegsaday si uu sharaxaad uga bixiyo baahida keentay dhalashada dowladaha awoodda wax ku muquuniya. Wuxuu sheegay in bani aadamku ka hor intii aysan bulshooyinka iyo dowladnimada baran ay ku sugnaayeen xaalad uu u bixiyay xaaladda dabiiciga ah state of nature, oo ah marxaladii ka horreysay samaysanka bulshooyinka iyo dowladaha, oo ahayd xaalad dagaal oo noloshu ay ahayd mid ku tilmaaman kalinimo, saboolnimo, xumaan, dugaagnimo iyo gaabni. Sababta ay noloshu u noqotay mid sidaas u liidatana waa in dadka qof kasta uu kuwa kale dagaal kula jiray, maxaa yeelay qofku ma awoodin inuu umuurihiisa agaasimo isaga oo aysan dadka kale isku dhicin. Waayo ma jirin awood kala celisa, isla markaasna sida dhaqaalayahanadu ay sheegeen khayraadka dhulka ka jira waa kuwo naadir ah oo si fudud baahida dadka oo dhan aan u haqabtiri karin. Labadaas arrimood oo la isu geeyeyna waxay dhalinayaan in dadku si joogto ah u dagaalamaan, qof iyo qolo kastaana ay qashaan kuwa ay ka itaalka roon yihiin. Waxaa intaas dheer in Hobbes uu hoosta ka xariiqay in dadku samaha oo ay jecel yihiin darteed aysan qaanuunka u adeecin, balse cabsida ay ciqaabta ka qabaan ay tahay midda ku khasabta in ay sharciga u hoggaansamaan. Hobbes wuxuu ku dooday in qofka bani aadamka ahi uu yahay aalad ay dhaqdhaqaajiyaan rabitaanka iyo raadinta raaxada iyo ka fogaanta xanuunka. Qofka bani aadamka ahi wuxuu u dhexeeyaa raaxo uu raadinayo iyo xanuun uu ka cararayo. Ruuxa bani aadamka ahi waxa uu jecel yahay ee naftiisu ay rabto wuxuu ugu yeeraa khayr, waxa ay naftiisu neceb tahay ee uu dhibsanayana wuxuu u bixiyaa shar. Had iyo goorna wuxuu ka shaqeeyaa sidii uu u heli lahaa khayrka naftiisu rabto, ugana badbaadi lahaa sharta naftiisu neceb tahay. Taasi oo macnaheedu yahay in xaaladda dabiiciga ah ee qofku uu yahay anaani danaysta ah oo u nool sidii uu u badbaadin lahaa naftiisa kuna gaari lahaa waxa uu doonayo, xitaa haddii arrinkaasi uu ku kalifayo in uu dad dilo ama uu dad dhaco. Dadku xayawaanka kaymaha ku jira bay dugaag ku sheegaan, laakiin iyaga ayaa ka dugaagsan haddii aan la helin awood iyo xeer kala xakameeya. Damaca iyo doonida dadku ma laha xad ay ku istaagaan oo aan ka ahayn in geeridu soo afjarto. Qarniyo badan ka hor Hobbes, Yurub waxaa la isweydiin jiray su'aal ah waa maxay sababta keentay in loo baahdo in dadweynuhu ay adeecaan madaxda u talisa. Jawaabta caanka ah ee qarniyo badan weydiintaasi laga bixin jiray waxay ahayd in boqornimadu ay tahay deeq Alla uu bixiyo, raaligelinta eebbana ay ku jirto in la adeeco qofkii eebba u garto inuu boqor ka dhigo. Cidda khilaafta boqorraduna ay noqonayso cid Alle ku caasiday oo cara iyo cadaab Alle mudanaysa. Fikraddaas oo ah aragtida loo yaqaan xaqa rabbaaniga ah. Hase ahaatee xilligii Hobbes, Yurub waxaa ka soo baxay dad badan oo aan ku qanacsanayn aragtidaasi. Dadka aan aragtidaas ku qancinna waxaa ka mid ahaa Thomas Hobbes oo isagu ahaa mulxid ka biyo diiday fikradda ilaahnimada qudheeda oo uu ku tilmaamay in ay tahay fikrad loo hindisay si dadka loo baqdin geliyo darteed. Hobbes markii ugu horreysay ayuu wuxuu soo bandhigay aragtida loo yaqaan aragtida heshiiska bulsho, the social contract theory. Aragtida Hobbes ee heshiiska bulsho waxay dhigaysaa in dadka oo dhammi ay xaqooda iyo xorriyaddooda uga tanaasulaan hal qof oo xukuma, iyagoo oo ku beddelanaya in ay nabadgelyo iyo nolol wanaagsan helaan. Laakiin boqorka ama taliyuhu heshiiska qayb kama uu ahaa, ee heshiisku wuxuu u dhexeeyaa xubnaha bulshada ee kale. Taliyuhu magac kasta oo loogu yeero dadweynaha waa ka sarreeya, mana ahan mid sharciyadiisa iyo awooddiisa ka helaya hay'ad diimeed, balse wuxuu ka helayaa bulshada ku heshiisay in ay isaga madax ka dhigtaan, una igmaday inuu kala dhex galo iyaga iyo xaaladda dabiiciga ah ee fowdada iyo islayntu ay dadka ka saayid caleeyaan, ee ruux kasta uu ku khasban yahay inuu wax dilo isagana la dilo. War of all against all. Taliyuhu wuxuu leeyahay awood buuxda oo ma jirto cid la xisaabtami karta, waxaana saaran waajib ah inuu bulshada difaaco. Khayrka, sharka, cadaaladda iyo sinaantuna waa hadba sida taliyuhu u jaangooyo. Hobbes wuxuu ku dooday in madaxda iyo shacabku ay isku darsanayaan 2 shay oo kala ah adeecid iyo ilaalin.
Dadweynuhu madaxda waxay siinayaan okobanaan iyo inay awaamirtooda u hoggaansamaan. Madaxduna dhankeeda dadweynaha waxay u ballan qaadaysaa inay ilaalinayaan ammaankooda dhan walba, naf, maal iyo sharaf.